بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس مرودي سقالقة مدحويني هورا مدحويني حسن شيخ محمود قدوميها بارلمانكا قدومي كحقان ديسا قدوميها أغل كسرية كحقان ديسا دمان لبدا أغل بارلمانكا أغل كسرية ولكن مدحوينه إسماعيل عمر قيل وان كدا لين صوماليا ولي اسمرنا يوفد الله صعدا سداس وكاله رئيس وزراء شرماركه مدحدا دولة goboleedyada safiirada dawladaha aan saaxiibada nahay ee ka soo qayb galay xafladan wufuuda madaxda dawladaha ee ka soo qayb galay xafladan bahda saxaafada iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha kooxda fanaaniinta ee aadka u dadaashay waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib fursad weyn ay tahay maanta inaan markaa halkan soo istaago wuxuu xafladeeyo guushan oo aan leeyahay waa guul Soomaaliyeed Soomaali waxaan leeyahay balyo walaalkay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay balyo sidaas oo kale waxaan rabaa inaan balyo walaalkay madaxweyne Xasan Sheekh dadaalkiisii 4 sano iyo hogaaminta uu soo hogaamiyay doorashada iyo natiijada sida uu mataqaanaa ugu hoggaansamay una diyaariyay xafladihii kala duwan aan soo aragnay intaas markii aan ka gudbo waxay la tahay waxaan maraynaa si dadku wada sheegeen taariikh muhiim ah oo u baahan inaan isha u baryareyno waxaan soo marnay marxalada adag oo runtii xanuun badan oo soo maray tabartaanu ha yaraato laakiin maanta shayga Soomaali isku waafaqsan tahay in 4 sano doorasho la sameeyo si fiican ay u dhacdo cid ku guuleystana lagu la shaqeeyo taas waxaan islaayahay taas waa arin aan marna laga tanaasuli karin waa arin u baahan mar walba inaan farta ku fiiqno hoosta ka xariiqno sheegno adkayno ku wada shaqeyno marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aad u culus marka dhinaca siyaasadeed laga fiiriyo marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha marka laga fiiriyo dhinaca amniga marka dhinac walba laga fiiriyo madaxweyne waxaan ku ballan qaadaa inaan kula shaqeeyo aniga Soomaaliya waxaan ballan qaadaa inaan la shaqeeyo madaxweynaha shardi la'aan waxaan u arkaa waajib inaan ka shaqeeyo arrintan intaas markii aan ka gudbo xafladan waxaa iskale madaxweyne Farmaajo marraba hadal badan inaan ka yiraa madaxweyne oo kugu soo dhaweynana waana kula shaqeynaa aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh